bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay ilaalinta qalbiga iyo carabka. qisadan ayaa waxay dhex martay ninka la yidhaahdo luqmaanu xakiim iyo sayidkiisa. luqmaan asal ahaan wuxuu ahaa nin xabashi ah kana soo jeeda dalka suudaan eena loo yaqaano dalka nuuba oo ku taalla koonfurta masar iyo waqooyiga suudaan. alla subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlay qisada luqmaan qur-aankiisa ayadana loogu magacdaray suurad ka mid a qur-aanka. luqmaan wuxuu ahaa nin aad u xikmad badan islamarkaa nolosha wax badan ka fahansan. wuxuuna ahaa addoon, balse kama aysan rabin addoonnimadiisa inuu allihii abuuray aqoonsado, cibaadadana u gaar yeelo. maalin ayaa isaga iyo sayidkiisa qiso dhex martay. sayidkiisa ayaa ku yidhi maalin isaga oo doonaya inuu ogaado xikmaddiisa, waxaan kaa doonayaa inaad iisoo gowracdo neef ari ah, aadna ii keento labada xibin ee ugu wanaagsan. luqmaan waa uu baxay, wuxuuna soo gowracay neefkii, wuxuuna u keenay sayidkiisa qalbiga iyo carabka. muddo kadib sayidkii wuxuu ku amray luqmaan inuu mar labaad usoo gowraco neef kale, islamarkaana u keeno labada xibin ee ugu xun. luqmaan wuxuu soo gowracay neefkii, hase yeeshee mar kale wuxuu u keenay qalbigiisa iyo carabkiisa. ninkii wuxuu ku yidhi luqmaan isaga oo la yaaban, waxaan kolkii hore kaa dalbaday inaad neef iisoo gowracdo, aadna ii keento labada xibin ee ugu wanaagsan. waxaad ii keentay qalbigii iyo carabkii. mar labaad ayaan waxaan kaa dalbaday inaad neef iisoo gowracdo, islamarkaana aad ii keento labada xibin ee ugu xun. waxaadna ii keentay isla labada xibin ee maxaa jiro. wuxuu yidhi luqmaan isaga oo tusanaya xikmadda uu ka lahaa, labadan xibnood haddii ay wanaagsanaadaan wax weliba way wanaagsanaanayaan, haddii ay xumaadaanna wax weliba way xumaanayaan. qisadan waxaynu ka faa'iidaynaa in qof waliba uu ku dadaalo sidii uu ku ilaalin lahaa qalbigiisa iyo carabkiisa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, addoonka iimaankiisu ma toosayo ilaa uu qalbigiisa ka tooso, qalbigiisana ma toosayo ilaa carabkiisa uu ka tooso ama uu ka hagaago. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gabaneelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.